cashirkan waa qaybtii labaad ee ahaa cashirkeennii multiplication of polynomials isku dhufashada polynomialska qaybtiisii labaad weeye cashirkan waxaan ku subinaynaa tusaale noocan oo kale ah tusaalaha wuxuu leeyahay 5x square y square laga jaray negative 2xy lagu daray 3y parenthesis hadana lagu dhiftay 2xy lagu daray 7y parenthesis marka waxaan subinaynaa sidii caadada ahayd markaad isku dhufanaysid polynomialska waxaa la subiyaa lambar walba oo dhankan bidix xiga ayaa waxaa lagu dhuftaa lambarada dhankan midig xiga sida midkan baan waxaan ku dhufanaynaa kan baan ku dhufanaynaa haddana midkan baan waxaan ku dhufanaynaa kan haddana kan baan waxaan ku dhufanaynaa kan haddana kan baan waxaan ku dhufanaynaa kan haddana kan 3y baan waxaan ku dhufanaynaa midkan haddana 3y baan waxaan ku dhufanaynaa 7y saas baa la subiyaa marka haddaan isku dhufano 5x square y square waxaad ku dhufataa 2xy wuxuu noqonayaa 10x oo leh exponenti 3 haddana y oo leh exponenti 3 sababtoo ah 5 markaad ku dhufatid 2 waa 10 xtan oo leh exponenti 2 markaad ku dhufatid xtan oo leh exponenti 1 wuxuu noqonayaa x oo leh exponenti 3 y oo leh exponenti 2 markaad ku dhufatid y-dan oo leh exponenti 1 laakiin halka ma muuqdee waxaad helaysaa y oo leh exponenti 3 haddii aadan aqoon sida exponentiyaasha laiskugu dhufto waxaad taawataa videoga kale oo ku saabsan isku dhufashada exponentiska hadda 5 square iyo y square waan ku dhufanay middan oo 2xy da ah haddana waxaan subinaynaa 5x square y square baan waxaan ku dhufanaynaa 7y marka 5x square waxaad ku dhufataa 5x square y square waxaad ku dhufataa 7y wuxuu noqonayaa 35 x square y oo leh 3 exponent 3 x square ti way joogtaa meeshiisa sababtoo ah x kan x ma lahan 7y x ma lahan marka exponentiga uu joogayaa 2 ahaanayaa 2 exponenti 2 ah ayuu ahaanayaa sababtoo ah x hadday meesha joogi lahayd exponentiga waa isku dhufan lahayd laakiin hadda sidiisu ahaanaya laakiin y-da 2y iyo y oo leh exponenti 2 markaad y ku dhufatid waxaad helaysaa y oo leh exponenti 3 sababtoo ah xarfaha markaad isku dhufanaysid waxaa la isku daraa exponentiyadooda hadda kanoo leh exponenti 2 waxaad ku dartaa kanoo leh exponenti 1 3 buu noqonayaa exponentiga marka hadda 5 square y square waan ku dhufanay labadan lambar marka hadda negative 2xy baan waxaan ku dhufanaynaa kan iyo kan baan ku dhufanaynaa marka negative 2xy waxaad ku dhufataa 2xy wuxuu noqonayaa negative 4x square haddana y square ayuu noqonayaa sababtoo ah kan wuxuu leeyahay exponenti 1 maya okay negative 2 ku dhufa 2 waa negative 4 x waxaad ku dhufataa x waa x square y-daanna haddaad y ku dhufatid waa y square baa helaysaa hadda negative xy waxaan ku dhufanaynaa 7y negative xy lagu dhuftay 7y wuxuu noqonayaa negative 14 x haddana y square ayuu noqonayaa sababtoo ah negative 2 markaad ku dhufatid 7 waa negative 14 x ma lahan x kale oo halkan lagu dhufto marka xt waan soo qaadanaynaa
haddana y markaad ku dhuftid y waa y square. hadda negative xy waan ku dhufanay labadan lambar, marka waxaa noo soo haray 3y. 3y baan qaadaynaa, kan iyo kan baan ku dhufanaynaa. hadda 3y waxaad ku dhufataa 2xy. 3y lagu dhufta 2xy 3y ku dhufo 2xy wuxuu noqonayaa 6 positive 6 way 6x ayuu noqonayaa y square, sababtoo ah 3 markii lagu dhufto 2 waa 6, y markii lagu dhufto y waa y square. x-tana waa soo qaadanaysaa ku og dhiganaysa, sababtoo ah x malahan lambar kaloo lagu dhufto, marka x-ta exponentigeeda sideedu ahaanaya. exponent hal ayay leedahay, hal kama muuqdo. hadda 3y waxaad ku dhufataa 7y. 3y lagu dhuftay 7y waa 21 3 lagu dhuftay 7 waa 21 y square way, sababtoo ah 3 markaad ku dhuftay 7 waa 21 y markaad ku dhuftay y waa y square. marka hadda sidaan waan isku dhufanay kulligood. marka waxaan subinaynaa, waxaan collecte garaynaynaa kuwa like termska ah ama kuwa like termska ah ayaan isku dardaraynaa. marka hadda 10x oo leh exponent 3 y oo leh exponent 3 ma lahan like terms, marka iyada waan qoranaynaa 10x 3 y 3. 35x square oo leh 35x oo leh exponent 2 y oo leh exponent 3 ma lahan like term, marka iyadana waan iska qoranaynaa hoostan. ma lahan like term ama wax kaloo lagu daro ma lahan lambaro kale oo leh xarfa isku mid ah iyo exponent isku mid ah ma haysato midaan 35. marka hadda negative 4x oo leh exponent 2 y oo leh exponent 2 ma haysato like term, ma haysato mid kale lambar kale oo leh xarfa isku mid ah iyo exponential isku mid ah, marka iyadana waan iska qoranaynaa. ma haysato okay x oo leh exponent 2 y oo leh exponent 2. hadda negative 14x xy square iyo 6x y square waa laba like term, sababtoo ah waa laba lambar oo leh xarfa isku mid ah. waxay leeyihiin x-ta iyo x-ta waa isku mid, exponentina ma lahan x-tana exponent ma lahan. y square iyo y square waa isku mid, sababtoo ah waa laba xaraf oo isku mid ah. waxay kaloo leeyihiin exponent isku mid ah, exponentigoodana waa 2. marka waxaan subinaynaa negative 14x y square baan waxaan ku daraynaa 6x y square. marka muxuu noqonayaa negative 14 waxaad ku dartaa 6 wuxuu noqonayaa negative 8 ayuu noqonayaa negative 8. haddana xt iyo y da soo qaadanaysaa y square midkan 21 y square ma lahan like term, marka waan iska dhiganaynaa, halkaas baan ku dhiganaynaa. hadda waan collect garaynay like termskii saasuu noqnoqday. kuwa kaliyo like termska ahaa wuxuu ahaa waa midaan iyo midaan ayaa like terms ahaa, sababtoo ah labadan waa laba lambar oo leh xarfa isku mid ah iyo exponential isku mid ah. xarfa isku midkay leeyihiin waa x iyo y, kan wuxuu leeyahay x iyo y. waxay kaloo leeyihiin exponent isku mid ah. y-dan waxay leedahay exponent 2 ah, y-danna waxay leedahay exponent 2 ah, x-tanna waxay leedahay exponent 1 ah,
x-tan waxay leedahay exponent hal ah marka labadan kan iyo kan waa like terms laakiin kuwa kale xarfaha isku mid ayay ka yihiin x iyo y mid walba way leedahay laakiin ma lahan exponential isku mid ah soo ma aragtid kuwa like termska ah waa inay lahaadaan exponent isku mid ah iyo xarfo isku mid ah tusaale ahaan hadda marka jawaabteeni waa intaasay noqotay jawaabteeni hadda tusaale ahaan oo kale 5x oo leh exponent 4 y oo leh exponent 4 iyo maxaa la dhihi jiray iyo 8x oo leh exponent 4 y oo leh exponent 4 waa laba like term sababtoo ah labadan lambar waxay leeyihiin xarfo isku mid ah iyo exponential isku mid ah cashirkana meeshaas ayuu ku dhamaaday oo ahaa qaybtii saddexaad ee collecting waxaan ka wadaa multiplication of polynomials ama isku dhufashada polynomialska meeshaas ayuu ku dhamaaday